بسم الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. ما بعد warbaahinta sharafta leh ee halo karamka ah ee ummadooda u shaqeynaysa annaga isuukin wacnay waxaanu rabnaa inaan waxoogaa yar oo macluumaad ah la wadaagno bulshadayada. guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinku waa guddi madax bannaan oo lagu dhisay heshiis ay wada gaadheen madasha wadatashiga qaranku isla markaana ay ansixiyeen labadii aqal ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, aqalkii sare iyo aqalka hoose labadaba. waxaa lagu dhisay habraacyo loogu talagalay in ay ku xalilaan dhammaan cabashooyinka jira. inta badan guddiga xalinta khilaafaadka doorkiisu waxa weeye inuu cabashooyinka jira ee doorashooyinka ka dhasha xalilo oo wax ka qabto. habraac ayaa loo raacaa markaa. habraacaas ayaa gaadhgaraynaya inta maxaa la qabanayo, goorta la qabanayo, procedure-ka la marayo, nidaamka loo marayo, waxaas oo dhan habraacaas ayaa maxay ahayd haga kaas ayaana ah annaga waxa inta badan na hogaamiya ee aanu ku dhaqanno ee go'aamiya qaraarada aanu qaadanayna nooca ay noqonayaan. intaa markaan ka baxo, habraacyadaasi waa habraacyo ay saxeexeen madasha wadatashiga qaranku oo uu ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeedna guddoomiye u yahay. kaas ayaa annaga na hogaamiya, kaas ayaa annaga aanu raacnaa. waxaa laga yaabaa mujtamaca ama bulshada ay dhegaysanaysaa inaanay wax badan ka ogeyn habraacyadan raacnaa kuwa ay yihiin. marka inta badan bulshada ogaalyarideedu wuxuu keenaa in wax kasta oo loo sheego ay rumaystaan. markaan taa ka gudbo, laba kiis oo annagu aanu qabannay, labadaa kiisba waxaanu u raacnay habraacyadaas. habraacyada aanu raacnay ayaana u arkaynay inay ahayd cadaaladda keliya ee wax maxay ahaydey labada dhinacba xaq siinaysay. labadaa kiis ee aanu qabannay mid wuxuu ahaa kii Xuseen Carab Ciise oo 239 ahaa, midna wuxuu ahaa kursigii ugu dambeeyey 67 ee uu ku soo baxay Yaasiin Faray. labadaaba hab aad u qurxoon oo laga baaraandegay oo habraacyada loo eegay oo procedureska nidaamka loo dejinaa loo eegay ayaan u maray. ilaahayna waa nagu guuleeyey. Soomaalidu waxay tahay gar laba nin kama wada qosliso. way dhacdaa inta badan dadka loo garnaqayaa in aanay garta ku wada qancin, inta badanna ka garta waaya oo u arko in laga eexday. laakiin annaga doorkayagu wuxuu ahaa mahmaadii Soomaaliyeed ee ahayd ilaahu gareexana hanooga tegin aqoonna hanagu cadaabin. taasay ahayd, taasaanu maxay ahaydey aanu wax ku go'aaminay. cid kastoo cabasho ka qabtaana way noo iman kartaa, waa ka qancinaynaa, waa hor fadhiisanaynaa, procedureski nidaamkii aan raacnay baanu tusaynaa. waxaanan hubnaa cid kastoo noo timaado inaanu ku qancin karno, ama cid kastoo xataa qaraarkan soo saaray akhrisatayna inay ku qanacsan tahay in la maray wadadii saxda ahayd ee cadaaladdu ku dhisnayd. intaa markaan kaa kaga baxo, intii uu socday kiiskaasi wax badan baad moodaysay in mujtamaca la marin habaabinayay, been lagu shubayey, lalahaa guddida xalinta khilaafaadka doorashooyinka meel kale wax looga yeelinayaa. ummadda waxaan u caddaynayaa annaga kooxina ma leh, ciidanana ma leh, nidaam gaara uma adeegayno, koox gaara uma adeegayno. annagu waxaanu u adeegaynaa waxa weeyaan kala saarista xildhibaanada ama musharaxiinta ku tartamaya ee qaarkood ku qancin waaya natiijada kursiga ka soo baxda. waa kuwa aanu rabno inaanu xaq ku kala saaro. waa kuwa aanu rabno inaanu habraacyada iyo nidaamyada noo yaalla ku kala saaro. waana kuwa mustaqbalka noqonaya hogaamiyayaasha bulshada. waxaan halkan jecelahay inaan kala hadlo dad midowga musharaxiinta hogaamiyaashooda oo ah hogaamiyaashii berito, waa hogaamiyaal aanu jecelahay. laakiin inta badan iyagoo annaga waxba la weydiin qaraarada aanu qaadanayno cidlo ka mala awaala. nimankaa waxaanu leenahay niyo hogaamiyaashii berri baa tihiin, hogaamiyaal aanu jecelahay baa tihiin, hogaamiyaal aanu qalbigayga ku haynaa tihiin. wax ummaddan kala fogeynaya aad iyo aad uga durka. waxaad rabtaa inaad ka hadashaanna noo kaalaya ee annaga na khuseeya, annaga idinka qancina inteedaan bulshada waxba u sheegin. ayaan iyagana intaasaan kula dardaarmaya. mar kasta oo aanu kiisaska noocaas oo qabanno bareeshar waa iska jiraya. bareeshar fara badan oo aan haystaa waa jiraya oo nagaga iman kara meelo kala duwan. waxaanu jecel lahay meelahaana inay bareesharka naga daayaan oo hawsha ay iyagu noo igmadeen ee iyagu noo tala saarteen oo aan waliba ku hogaamiyno iyagu habraacyadii ay saxeexeen ee ay dejiyeen inaan ugu ixtiraaman baanu qolyahaana ugu baaqaynaa.
taasaa danta dalku ku jirta danta dadka Soomaaliyeed ku jirta hufnaanta iyo milgaha doorashadu ku jirta annagana noo dhib yar oo aan culays iyo pressure badan la saaraynin waa inta mudanayaal inta aan maanta isugu kiin aanu yeedhnay inaanu idin la wadaagno waana mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo Next kadibna Confirm ugu dambeyntiina gali MPin-kaaga si aad u dhamayso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta